haddii aan horay idinkaga soo sheekeeyay magaalo joog xumada markana waa dhinaca masaajidada waxyaabaha masaajid joog xumada ah oo ay sameeyaan dadka Soomaaliyeed xilliyada la joogo masaajidada waxaa kamid ah kow kabahaaga oo aad soo casiisatay ama aad soo baalashatay ayaad banaanka ku siibanaysaa mid baaba kabihiisa dul saaranaya labo mid baa masjidka iridiisa salaad ku xiranaya markaas buu dadkii tukanayay oo dhan oo danahoodii aadi lahaa 10 daqiiqadood meesha ku haysanaya waliba kii hormarmaaga wuu iska qabanaya maba is oga inuu laamiga salaad ku xirtay mid kale ayaa masjidka iridiisa inta uu fariisto oo cambaar inta gacmaha jeebka gashto sigsaan kala soo baxo oo cagaha gashanaya kadibna bac halkeeda taala kaba kala soo baxaya isaga oo si tartiib ah u ilaalinaya ummadii oo dhan baana dul tuban markaas oo kale waxa ku qabanaysa yaa jeegada cag ka saara oo la tuura albaabkana ka baxa afar mid baa caday dheer oo 6 mitir ah la soo baxaya markaas buu masjidka dhaxdiisa isku balqaminaya labada uu masjidka kula dhax jiro waxaaba ka daran qashinka uu laqayo hal mar arki maysid isaga oo wax soo tufaya ilma adeerayaal masjid kasta ha loo yeelo nin xoog leh oo dadka noocaas oo kala ah xarig gunud la dhaca